بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أبا بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan rabnaa maanta inaan balfiirino wax yar ka hor maalmo ka hor waxaan u dabaaldegaynay soo dhaweynta bishii Ramadaan oo aan ku farxaynay maantana waxaan maraynaa 10kii ugu dambeeyay Ramadaanka 10kan dambe ee Ramadaanka ajaa'ib ay leedahay ajaa'ibteeda waxa kamid ah waa 10 bari ama 10 habeen oo Ilaahay uu ummadan ugu talagalay inay u noqoto fadli iyo dheeraad ama bonuska waxa la yiraahdo oo kale oo ajirkeeda lagu kabo way waxaan rabaa marka inaan ka hadlo dhowr arrimood kow 10kan dambe ee Ramadaanka waxyaabaha khasaa'ista ah ee khaaska ku ah ay leedahay maxaa kamid ah habeenka Laylatul Qadriga oo ku dhex jira 10kan dambe calaamado lagu garto ma leedahay qofku ma arki karaa wax la arki karo oo la ogaan karo batahay oo qofku uu ogaan karo hadduu qofku ogaado inay Laylatul Qadri tahay muxuu sameeyaa qofkaas oo uu kaga faa'iideysanayaa habeenkaas ma jirta duco la akhristo ama amal khaas ah oo la sameeyo oo habeenkaas laga faa'iideysto nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu dardaarmay sidee uu saahan jiray 10kan dambe ikhwaani 10kan khasaa'isteeda waxa kamid ah waa 10kii bari ama maalmihii quraanka la soo dejiyay quraanka ilaahay wuxuu soo dejiyay bisha Ramadaan khaasatan habeenka Laylatul Qadriga oo ku dhex jira 10kan dambe ilaahay wuxuu leeyahay bismillaahir rahmaanir rahiim inna anzalnahu fi laylatil qadr annaga soo dejinay quraanka habeenka Laylatul Qadriga alla wuxuu leeyahay inna anzalnahu fi laylatin mubarakah annaga waxaan soo dejinay habeen barakaysan baan quraanka soo dejinay ahlu tafsiirka iyo ahlu siyarka taariikhda marka la fiiriyo waxay dhaheen habeenkii ugu horeysay oo quraanku uu soo degay waxay ahayd habeen isniin ah salaada fajrka intay dhalanin ka hor intaan fajrku dilaacin ka hor waqtiga suxuurta ah bisha Ramadaan waxay ahayd 22 sababtoo habeenada witriga ah baa Laylatul Qadri ku jirtaa baa la yiri 22 bay ahayd taariikhda miilaadiga ah ee maanta aan marayna 2020kiina waxay ahayd bisha August 10keedii sanadku markuu ahaa 610kii waqti suxuur ah oo wali salaadi fajrka aan la aadaamin ba ilaahay quraanka aayadihi ugu horeeyay uu soo dejiyay waana markuu ilaahay inna anzalnahu fi laylatil qadr habeenka ilaahay nuur uu soo dejiyay rahmad naxariis kownkan ilaahay uu la doonay uu ilaahay soo dejiyay ee ilaahay uu lahaa ya ayuha nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون إلهي وحلي يا أيها الناس دد وقد جاءتكم وحائدين تمد موعظة وعد بائدين من قرآنك ووعد ووانو وبرارجين وحنونين إلهي وحلي قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وحقلبك داوية قلبك كدجا قلبك كقبوبة وهدى ورحمة للمؤمنين وهنون ينحريس قفك مؤمنك قل بفضل الله فضلك إلهي كفر حبو ألا ليه همين كاس إلهي أمورك سودتشي إن حريستنا لضعني وناقنا لضعني وهمين كاس رمضان كوي لباتنك وها ما همين سنين انتي أسلاد فجرك لقارين خصائصتا طبعا كان دم مركة وحكمد قرآنك soo degay waxa kala khasaa'isteeda kamida waxa ku jira hameen al-amalu fiha khayru min 1000 shahr amal la sameeyo hameenkaas wuxuu ka khayr badan yahay kun bilood adoo cibaadeysanaya marka xisaab ahaan la isku dardaro kun bilood waxay la mid tahay 83 sano iyo 4 bilood haddii hameenka cibaadeysato oo naxariis ilaahay kula doono oo hameenka aad haleesho waxa la mid tahay qof cibaadeysanayay 83 sano iyo 4 bilood qof gaara ma jira cimrigaas iyo qiimahaas ma la dayici karaa ma laga seexan karaa
qofku ma moogaan karaa oo wax cajiib ah weeye waxa laylatul qadriga fadligeeda waxaa ka mid ah waa habeenkii qur-aanka la soo dejiyey waa habeen barakaysan oo ilaahay u leeyahay inna anzalnaahu fi laylatin mubaaraka waa habeen alla uu xukumo amar kaste oo xikmad ku dheehan iyo wanaag oo adduunkan ka dhacaya kownka ka dhacaya habeenkaas baa la soo dejiyaa fiiha yufraqu kullu amrin xakiim buu alla leeyahay waxaa la kala xukumaa amar kaste oo xikmad ku dheehan tahay marka habeenkaas ayaa waxaa la soo dejiyaa oo lawxul maxfuudka laga soo dejiyaa qofkii dhalanaya risqiga la cunayo caafimaadka jirada khayrka sharta wax kasta oo laga bilaabo habeenkaas ilaa sanadka kale habeenkiisaas laga gaaro wixii dhacayay oo dhan ba habeenka la soo dejiyaa inta laga soo dejiyaa lawxul maxfuudka yaa malaa'igta waraaqaha ama suxufta ay wadato bugaagta ay wadato baa lagu qoraa يا ليت قفك همينك سوجيدا أو عبادي سنة أو دعاء سنة أو سؤال يا رب يا رحمن يا رحمن له همينك أي وافقه همينك وحاكم إذا وناجيدا وهمين أيضا نبتقليئة وقال ليه محل قبل أن نبتقليه عذاب كدتك لقبت بعديه أنت عبادي سنة وناجد دعية ونبتقلي أيضا سلام هي حتى مطلع الفجر وهمينك ما رأيت يسودكته وملك جبريل والله صعده وحن خير iyo barako ahayna lama soo dagaan waxameenkaas qofki istaaga oo tukada dambigiisa oo dhan baa la dhaafaa wuxuu nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam man qaama laylatal qadri iimaana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi dambiga oo dhan baa lagu dhaafayaa yaan rabin inuu noqdo maalintii hooyadii dhashay oo kale yaan rabin in dambiga dhan laga dhaqo yaan rabin in camalkiisa ay noqoto waraaq cad oo nadiifa oo wax dambi aan lahayn waa habeenkaas oo tukatay waxa habeenkaas waxaan isweydiinaa su'aal ah haddaan habeenkaas ma la arki karaa ma la ogaan karaa ila nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam man adraka faqad adraka alkhayr qofkii habeenka alla siiyo khayr oo dhan waa la siiyo wax khayr ah oo ka maqan ma jiro calaamado ma leedahay nacam waa la arki karaa سيلو أركي كرا حديث البخاري وحليه صحابة النبي قاركود بالليلة القدر اللي تسيي مركز النبي وحي صلى الله عليه وسلم وحان أركا ريادي إن يصار نقطي طمان كدنبه أي كسر نقطي قفكي همين كد دالي طمان كدنبه كد دالو إذا ولا أركي كرا سيلو أركي كرا علامات بإلهي كتوس كرا خردة إلهي كتوس كرا ريو وحبا إلهي كتوس كرا وحالي علامة هذا وحكم إذا همين كاسي وهمين أيضا نبا نور إيا اللايت واي همين كاسي قوة الضوء أو قوة الإضاءة وقوة النور بيلاده ونور أيضا همين كاس نور كأنك هذا مدر أنا صوت مقالوين باكو نحجرها وبحاكو نحجرها نلال لكن قفك الجوغة مال بادية أما مال فران ودريمي همين كاس وحياوها القدر أما وحكم إذا وهمين دقن طمأنينة نحريس انشراح صدر للمؤمن قفك مؤمن كقلبك أدقية نحريس بقى دريميسا صمدها فران روب بقى دقا وحد دريميسا جوي أنوسا عادي أهين همين كان دبيشيسو ودبيل دقن علامتها صعدنا وحل إلى هذا علامات مقارنة علامات الله صعد همينك وحاجرت علامات إلى هذا علامات لاحقة وحوية علامات دبصعت أو الصبح هذا قرحه أيضا شعاع لهين أو نور aan lahayn badan oo dinsan camal bay soo baxdaa haddaad calaamad aragtid dad baa waxay sheegaan iyagoo hurda in la tusay Aisha waxay tiri radiyallahu anha rasuulka Ilaahay ka waran hadii laylatul qadriga la ituso maxaan sameeyaa ka waran hadii aan haleelo maxaan sameeyaa nabigu wuxuu ku sallallahu alayhi wasallam waxa dhahdaa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni nabigu sallallahu alayhi wasallam haddaad hameenka walaa la dareento waad iska dhaadhicisay ama ilaahay baa kugu ilhaamiyay ama riyaad ku aragtay iyadoo waa laylatul qadriga istaag ama waxaad dareentay in jawiga iyo naxariista dagaysa iyo waxa jira inaan caadi ahayn hameenka istaag waxaad ku celcelisaa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni waxaan kale oo ku sheegayaa duco haddaad akhrisato ay tahay khasab garantii ducadaada in la aqbalayo ma ogtahay inuu jiro ducooyin la akhristo oo uu ku jiro ismullaahi al-a'zam
magaca ilaahay ee weyn ee haddii lagu baryo ducada uu aqbalo laba xadiid baan rabaa inaan idinla wadaago ducaa haddaad ducada xifdisid leylatu qadriga ku ducayso adoo tii hore akhrinaya xadiidka burayda ibn xusayb wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam baa wuxuu maqlay nin dhahaya oo nin ducaysanayo dhahaya allahumma inni ashhadu annaka anta allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب واحد إلهي كوي دي ستي مقع وين هدي وحلقوه دي سنة أوصيه هدي اللقو بريانا وأخبره وما حي وإنا هذه اللهم إني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومعنى هذا أيتها إلهي يو waxaan qirayaa adigu inaad tahay allah midka xaq mid lagu caabudo uusan jirin oo asaga aan ahayn waxaa tahay midka keligii ah ee samadka ah ee xaajada iyo danta asaga loo sheegto ee loo tiiriyo ee makhluuqa ay ku tiirsan yihiin waxaa tahay midka aan dhalin asagana aan la dhalin mid la simanna uusan jirin xaas la siman ayna jirin ducadaas waxaa wariyay imaamu abu daawud tirmidhi nasaa'i iyo keyrkood waana saxiix إذن دعاء وحاكجرت الله علماء وحي لهن اسم الله الأعظم مقع إلهي وين الغبريو هدال همين كليلة تقدر كوافق كبر يسيد وحاوية الله وي قرآن كوحي كل الله لفظك أو حكيمد لح لبكن لح بقول يسقاشا يتضمر شن مرة سوى اللهم أبو كيمد دعاء كدعاء دعاء الله بعض حويه حديث كأنس بن مالك أجير كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا النبي قال لجوي أنا فريا ورجل يصلي يدعو نبأ تكن يدعي سنة وحليه منك وحيري اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم قال النبي وحيري لقد سأل بالله لقد سأل الله بالاسم العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى نين باير أنس باير النبي صلى الله عليه وسلم بان لفديه نين دعي سنة تكنيا وحيري إلهي وحنكو ويديستي مهدا إنا أضو ليضح أذيك حق مد حق لغو عابضان أذيك أهينا مجرى وحاته منان مدك وحمنا يستوح بحية وحاته بديع السماوات والأرض مدك السماء يقولك أصبوا باللابي سميي يا ذا الجلال والإكرام الله وينك يا شرطة صاحبك يا حي يا قيوم الله النول أتاغن مخلوقة يدنا هذا أتاغنه كسنة وحي الله كوي تستمر يسي وينا هدي الله الغبر وأجيبه هدي الجوي تستنا أصيه مجا عن لبعضنا وحويه يا حي يا قيوم قرآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مجا إلهي وين صدح سورة بالقرآن كجرا سورة البقرة يا آل عمران يا طه بقرة وحكجرا الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية كسرة على عمران بلوغ يذو كجرا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم طهانا وحكجرا وعنت الوجوه للحي القيوم أبو داود حديث كاوري حديث لبدي حديث ورنا اسكو علماء ورسي أبو داود الترمذي النسائي باوري الله بضبا وصحيح لبضبا كذبنا وحسن إذن أخي الكريم أخت المسلمة ولاش المسلم يا ولا أخ المسلم كاهو هدي أتجوكتي طبعا كان بري همين كليلة تقدر وياها متى قامت هدي علامات الله بتصور خير هذا علامات أرجنا نبي صلى الله عليه وسلم بعائشة كشف يسوي حيث حديث البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر نبي مركي طبعا كان بري صوت شو هنجري هرتكو أحيا الليل همين كونوا لنجري وأيقظ أهله خيركي سنة وتوسين جري وجد ودلال جري وشد المئزرة قلت أنا وأكي سنجري معنى هذا وحوية هصيحن سوجد عبادي سو شن أرماد أن كنا لينا طبعا كان بري سنة اللي تقدر وهلا الله كو قرآن أخرس لبو صلاة صدح ذكر الله أفر دعاء شن وحون صدقاء بحث أمن يسوع الصبح بحثه هداد نوليس توان كان بري ليلة القدر يوال هالشيء هداد ليلة القدر هالشيء خير الدنيا يا آخر وال هالشيء ما دعك كرتا إنك صامرته
sanadkan leeyahay qadrigii adigoo hurda oo aan waafaqin habeenka dhan soo jeed kuma dhahayo laakiin saacado muhiim ah habeenka kamid ah soo jeed oo ducayso oo cibaadayso oo gacmaha taago oo yaa rabbi leh allah ka aqbalo leeyahay qadriga waad arki kartaa waad haleeli kartaa laakiin waxa adiga ku saaran oo dusha laga saaray inaad habeenka cibaadaysato wax kala dushaada ma aha jazaakum